Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu khayartan ajecelnahay meel walbo joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaan waa saaxiibkiin Shakata oo idinkala hadlayo daaha gadaashiisa barnaamijkuna waa barnaamijkeeni faaqidaada cayaaraha tartankuna waa tartanka qaramada qaaradda Yurub Talyaaniga oo caawa iska xaadiriyay finaalka tartanka qaramada qaaradda Yurub kadib markii uu garaacay Isbaanishka kana aarsaday tartankii uu ka qaaday ee Euro 2010 Talyaaniga iyo xulka qaranka Isbaanishka ayaa caawa waxa ay ku wada dheeleen wadanka Ingiriiska garoonkooda Wembley si kastaba ha ahaatee labada macalin oo ku soo galay shax adag ayaa macalinka xulka qaranka Isbaanishka ee lagu magacaabo Luis Enrique waxa uu ku soo galay shax adag oo ah 4-3-3 Unai Simon iyo Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Jorge Alba, Koke iyo Sergio Busquets, Petri, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal iyo Dani Olmo ayuu ku soo galay macalinka xulka qaranka Isbaanishka ee Luis Enrique halka xulka qaranka Talyaaniga horta intaana ka bixin xulka qaranka Isbaanishka waxaa u fadhiyay ciyaartoy waaweyn oo ay ka mid yihiin Diego Llorente, Rodrigo, Pau Torres, Alcantara, Gerard Moreno iyo Roberto Sanchez. Dhanka kale xulka qaranka Talyaaniga ayaa ayagana waxay ku soo galeen shax ah 4-3-3 oo waxba dhaamin. Donnarumma ayuu goolka ku soo bilaabay, Golovani iyo Di Lorenzo, Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti, Federico Chiesa, Piero Immobile, Lorenzo Insigne ayuu ku soo galay xulka qaranka Talyaaniga shaxdaas. Si kastaba ha ahaatee xulka qaranka Talyaaniga ayaa ciyaarta 4 daqiiqadii afaraad waxa ay ku soo qaadeen weerar aad halis u ahaa xulka qaranka Isbaanishka kadibna kubadaas oo ay ka soo wada shaqeeyeen Emerson iyo Barella ayaa waxa ay jareen birta garaaceen hase yeeshee Bruno oo hafsada dhigay xulka qaranka Isbaanishka ayaa kadib waxa uu isku dayay si uu u istaajiyo weerarka xulka qaranka Talyaaniga in uu Bruniga dhexda dego asigoona gacan ku haynta qadka dhexe la wareegay isla markiina ka aarsaday weerarkii ugu horeeyay ee ay qaadeen xulka Talyaaniga. Oyarzabal iyo waxa isku helay Elmo kubad xerada ganaxa dhexdeeda ah hase yeeshee kubadda si qatar iskugu dhiibeen ayaa laga badbaadiyay oo Nagaron Borta uu ka qabtay. Si kastaba ha ahaatee daqiiqadii 60aad ee ciyaarta ayuu xulka qaranka Talyaaniga helay goolka furitaanka ee ciyaarta waxaana uu dhaliyay Chelsea kaas oo ciyaarta ka dhigay 1-0 hase yeeshee daqiiqadii 70aad ayaa waxaa la soo geliyay ciyaarta bedel ku soo galay Alvaro Morata asoona ciyaarta barbareeyay oo 1-1 ka dhigay. Intaas wixii ka dambeeyay ciyaarta ayaa waxay 90kii daqiiqo ku soo dhamaatay 1-1 hase yeeshee waxaa lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah 30kii daqiiqana waa la isku mari waayay waxaana la bilaabay in la isku tuuro rigoorooyin 5 darba ah ayadoo xulka qaranka Isbaanishka uu rigooradii ugu horeysay soo qaaday Dani Olmo kaas oo banaanka mariyay kubaddii laga qabtay darbadiisii ugu horeysay hase intaas wixii ka dambeeyay xulka qaranka Talyaaniga asna darbadiisii ugu horeeyay waa laga qabtay hase yeeshee Talyaaniga iyo Isbaanishka 4tii darbe ee ugu dambeysay ee uu tuurtay Talyaaniga dhammaantood waa uu dhaliyay halka Isbaanishkana laga qabtay mar kale darbadii uu gamay ciyaaryahan Alvaro Morata. Dhanka kale Isbaanishka waxay dhasteen 2 rigoor waxaana u kala dhaliyay Alcantara iyo Gerard Moreno. ciyaartiina waxa ay ku soo dhamaatay 4-2 oo rigoorayaal la isla tagay waxaana la sugi doonaa kulanka habeen dambe ay wada ciyaari doonaan xulalka qaranka England iyo Denmark kii soo baxo ayaa finaalka wuxuu la dheeli doonaa xulka qaranka Talyaaniga ayadana in badan
loo saadaalinayay koobkan xulalka kala ah Talyaaniga iyo xulka Isbaanishka Italy. Haddaba ugu badnaan ciyaarta waxaa la saadaalinaya in iskugu soo hari doonaan kama dambaysta tartanka xulka qaranka England iyo Talyaaniga. Kumay kula tahay inuu ku guuleysan doono xilli ciyaareedkan oo xiiso gooniya leh tartanka qaramada qaaradda Yurub. Fadlan